waxaynu joognaa degmada Salaxley magaalada Salaxley waxaynu furaynaa daamkii weynaa ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgelisay magaalada oo ilaahay mahadii biyuhuna buuxa oo biyo fadhiyaan oo ceegaagaan dhammaan wixii agab iyo farsamo u baahnaana loo dhammaystiray maantana magaalada Salaxley ay ka cabayso daamkanu sida khubradii iyo shirkadda ay sheegeen 600,000 oo foosto qaadaya intan imika idin muuqatay daamka xaggaana dhoobareeb baa ka xigtay iyaduna aad u weyn oo 50 dhinacna 30 ah waxa ku jira bamkii sida biyaha ka qaadayay beebka magaalada gaarsiinayay beebkii weynaa ilaa magaalada geynayay 6 meelaha kaalmaha biyaha laga qaatay kioska la yiraahdo magaalada bartankeeda ku yaala marka ilaahay ma hadii weeyo waa dhaam markuu buuxsamo ilaa iyo aynu qiyaasayno inuu ilaa iyo sanadkiisa kale ay biyo gaari doonaan hadii la ka dhigo aan go'aynin sida arkayseen Salaxley dhinaca koonfureedna dhaamkana kaga yaalo biyihii oo ku socda dhinaca waqooyina riigii baa ku yaalo isna xagaana biyo kaga soo socdaan biyo ku filan oo maanta ay magaaladu ku magaaloobi karto ku balaaran karto ayay ka haqablaadahay maanta tacabkaas oo dhamina waa tacabkii dawladdii aad doorateen ee dadka dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u doortay daamkan taariikhdiisa waa laga waramay bilowgiiba madaxweynuhu markuu cusbaa wuxuu ku taliyay halka daam weyn laga sameeyo sidaas uu ku hirgalay dhammaan lacagta ku baxdayna waa lacagtii qaranka shilil meel kale ka yimi ma jiro waa cashuurtii iyo miisaaniyadii dalka waana daam aad iyo aad runtii u weyn waa runtii waa sidaa sheegay waqti dheer buu soo socday oo farsamo ahaan iyo waxyaabo yarar baa markii farsamo ahaan istaagay laakiin finally waxa la wax farsamo ahaan ka dhiman ma jiro waana taa la cabayo haddii la ka dhigo waana mashaariicda waaweyn ee hoos iman doona wasaaradda iyo hantida dawladda waxaan runtii u sheegayaa dadka dadweynaha reer Salaxley in aad iyo aad loo ilaashado hantida inta leega gashay wasaaraddana wakiilka u jooga isaga ka mas'uul noqon doona wixii mar baahiye iyo wixii loo baahan soo gudbin doona inta ku dhaafo imkaynu xariga ka jari doona haddaan inta halka ku dhaafo runtii waxaa ka socda dalka mashaariic aad u badan oo dhinac kasta leh maaha biyaha qura wadooyin aan xad lahayn baa ka socda waxbarasho ka socota caafimaad baa ka socda dhammaan adeegyada dadka ka socda biyuhuna waa ka mid waa mashaariicda ugu badan ee dalka ka socda marka degmooyinku waxay isku tuurtuurayaan qolaba waxay tiraahdaa xagaasaa loo badiyay iyo xagaasaa loo badiyay marka saddex degmo halkan iska xiga iyo baan idin sheegayaa inta ama socota ama dhamaatay ama hadda diyaar ah laga yaabo inay bisha China wali bilaabantay miisaaniyadda qaranka iyo markay ku jiraan waxaan ka bilaabayaa saddex degmo waxa weeyaan Salaxley Sabwanaag iyo degmada weyn aad ka balaaran oo dadweyne marka degmooyin badan oo kale way hadheeno waa barnaamijku waa tusoo taabsi anaguna runtii la murmayno qof waxa uu hayaa qalinkii baan haynaa mas'uuliyadii baan haynaa qof aan mas'uuliyad badan saarayn ama xil dalka u hayn waxa qulu qabtaa ay tahay inuu dhaliilo uun shaqada ugu weyn u hayaa qofka mas'uulka ah xilka dawladda haya shaqa u taala habeenii maalin uu shaqeynaya laakiin qofka ama macaaradka ama wuxuu hayaa waa inuu yiraahdo inuu wuxuu iska dhaliilo ama ha u miidaan dayo ama yuu u miidaan deyn mid kalena way jirtaayo qof laga yaabo inuu 50 sanadood dan guud ka soo shaqeynay oo madaxda dalka hadee wada garanaysaan kamid ah iyo qof aan weligii dan guud ka shaqeynin ayaa dalka ku murmaya oo intuu mikrofon macaarad ku afbartay dabeedna oranaya kaas waa xun yahay waxa lama qaban oo waliba hadalla dhiif laho aan bilow average oo ka hooseeya wixii lagu wada hadli jiray oranaya weligii dan guud ka ma shaqeynin marka
ninkii reer salaxle gabiyey baa gabaygiisa wuxuu ka mid ahaa aad u faanayay buu ahaa de mala waxna waa ka jiray de mala faankaas dhalinyaro cad duban qaadatay iyo guluf caraabaya cimrigii nimaan arag miyaa ii argaagtamay nimaan weligiiba dan guud ka shaqayn ayaa doonaya inuu kula murmo midda labaad waxaa jira iyana qaar dee soo shaqeeyey oo de iyaga laftooda shaqooyin dowladeeda soo qabtay noocay doonaan ahaadaanoo raaday ka tageen iyana aan la garanayn marka dalka meel waxaad qabatay dalka ka tagto ee shaqadii aad ka tagto dib baa lagu eegayaa oo maxaad ka tagtay muran iyo indhacadaysun dee maaha inaad ka tagtide wixii dadku kugu xasuusan lahaa ka shaqee dad soo shaqeeyeyna way jiraan laakiin aan wax loo rikoord garayaaba jirin labadaa midna la u jawaabi mayno lala murmi mayne saddexdaa degmaan halkan idinku sheegaya inta laga qoday aad bay u badan yihiin kolley qaar badan way kala gedmanayaan wax la kala tirin karaya maaha laakiin iminka waxaa degmadan ceelasha qool caaday ceel buu leeyahay waa ceel dheer ceelkan salaxlay ceelka ceelka salaxlay halkan geedhka oo isna iminka farsamo ahaan aanu ka shaqaynayno ceelka balli mataan oo isna ceelasha dhaadheera qool caday qool dhuxulaale oo dhaam weyna maxamed daawud oo isna dhaam weyna marka deegaankanoo qura ilaa 5 dhaam iyo 4 ceel baa ka samaysan ceelkan iminka kanaynu iminka joognaana waa ka ugu ballaaran ka dhaamka la yimaado marka intaasuba waa deegaankan iminka aynu joogno sabab wanaag dhaam weyn baa laga sameeyey dowladdu ka samayso hadda laga cabaawo dhammaystiran shirkad reer sabab wanaaga baana kontraagana qaadatay oo cabdilaahi carabo waa dhammaatay dowladduna way kala wareegtay haddana wuu shaqeeyaa sida kanoo kale u buuxaa miisaaniyadda iminka waxaa ugu jira ceel oo lacagtiisii baarlamaanka miisaaniyadda la geeyay ugu jirto waa ceel dheer isna bisha January baa la bilaabi doonaa isla eeriyada sabab wanaag iyo waxaa isna ku jira waxaa laga qodi doonaa dhaam ay ku bixi doonto ilaa $800,000 oo kanaynu iminka joogno qiyaastii leeg ama dee laga yaaba inuu kaba sii weynaadaba oo isagana lacagta ay bixisay midowga reer Yurub oo halkaa madaxweynuhu u qoondeeyey annaguna aanu dhisaankii iyo qorshihii oo dhan aanu gudbinay si degdegana u bilaabmi doona haddii alla ka dhigo marka eriyada sabab wanaag ilaa bendar wanaag buu ka samaysmi doonaa waxaa isna iminka la wadaa dhaamka weyn ee ood weyne waa tiifiyada ka daawateen oo isna 600,000 oo foosto noqonayo kan lee qiyaastii waxaa isna iminka socdo hadda soo dhagax dhigi doonaa dhaamka weyn ee xaaji saalax oo isna dee dhaamka waaweyn ee dalka ka mid horta waxaan idiin sheegayaa dhaamka sidii loo qodi jiro dhan waa laga bedelo waa la ballaariyey si haddii xilli roobaad la waayo qorshihii iyo bolisiga dhan waa haddii xilli roobaad la waayo xilli roobaadka kale uu ku gaadhsiin karo aanu markiiba gurin marka hay'adii yareedaa ee 140 keeni jiray oo dhan waanu ka joojinay dee hay'adda waxaa qodi karaysa waxaan waa hantidii dowladda qodi karaysana waa soo deynaynaa kuwa garab raratada ee tigtiglayaashaana waxaan odhanayaa dadka baraaga ugu qoda waxaas dee dhaam noqon maaye marka xaaji saalaxna hadda dhaamka weyn buu ka mid yahay hadda la soo dhagax dhigayaa waxaa jira gocon dhaale oo isna dhaam weyn ka dhammaaday hadda oo isagu biyihii ku jiraan sida kanoo kale aanu hadda ku soconaanu doonayna inaanu soo furno waxaa jira 3 dhaam oo deegaanka ood weyne isna hadda bisha January ilaa February bilaabmaya oo waa kontraagyadii iyo wixii waaba la baahiyey iyaga oo dadka qaarna waa ku guuleysteen qaarradii way sugayaan waa mureec dhoobo weyne iyo god waraabe saddexdaasina waa ood weyne waxaa jira ceelal dhaadheer oo iyana la qodayo oo imika aanu hadda soo dhagax dhigi doono Jeenyalaaye oo dhaam weyne oo riigiba imika dul taagan yahay ceela oo isagana imika soo dhagax dhigi doono waxaa jira ceel xume oo isna ood weyne area waanu imika isna soo dhagax dhigayno oo isna dhammaystiran waxaa jira ood weyne magaalada la yidhaahdo dhowr jeer baa biyo laga waayey marbaa $500,000 la geliyey markaa sarfeygii in lagu noqdo ayaa daruuri noqotay hadda markaa hay'ado caalami aanu la kaashanay kambani weyn oo Holland ayaa imanaya sarfeyga la qaadayo ilaa satellite lagu qaadayo waxa uu helinayaa test well laga sameeyay ceel tijaabo ah marka sarfeygii la qaado satellite lagu qaado qalabkii lagu qaado ceel tijaabo ana waa lagu darayaa
ceelkaas ceelkii la qodayay maaha ilaa inta biyaha lagu gaadhay ilaa inta basementka dhagaxu soo celiyay la gaadhayna waa la qodaya marka waxaa si dee aqoon iyo cilmi iyo practicalaba looga jawaabayaa bal ood weyne biyaheedu waxay yihiin taasuna waa kaa waxaa kaloo isna jira ceel isna dhaqso loo bilaabi doono oo cadaadley area oo shaarb meesha la yidhaahdaa waana ogeydeeno $500,000 ood weyne waa lagu bixiyey waxaa jira iminka intaas waa $22 aan tiriyey qaar kaloo aanay sheeginina way jiraan waxaan u sheegayaa waxa weeyaan waxaasoo dhan waxyaabaha waxqabadka ah ee biyaha markay tahay iyo waxyaabaha kalena waa la mid sector waliba waa la mid dadka fariinta loo diraya ee cuqdada iyo waxaas la leeyahay idinka waxba laydinma qaban mucaarad iyo waxaas la idinku diidan yahay inaan waxba ka jirin sida markaan liiska u eego waxaan dhahdaa warde mala wasiir xagganaaba jeegaana baan idhaahdaa mala jeegaanta la sheegaya abada waa xaggan ha marka waxaana ama mucaarad ahaw ama maxaafid ahaw xuquuq baad dadka ku leedahay muwaadin baad tahay mas-uuliyadda dawladduna waa inay qof kastoo muwaadina wax gaadhsiiso laakiin maxaa dad kale looga baahan yahay inaad qarto in qof aan weligii wax talin intuu ku yimaado ku dhaw waa layna diidan yahay ama waxba laynooma qaban dee waa inaad tidhahdaa midnimee waa la qabta meeshaa doonto u codee cidnima khasabto dalkeenna sanduuqa halkaa la soo dhigaya laakiin waxaasoo wax tara waa in dadka tashuushadaynaya ee dadka isku diraya ee deegaamada u kala warsheekoonaya waa in la yidhaahdaa adeer joojida waxaas ma jiraan si kale oo codka u soo doono oo de sidii loo tartami jiray ah waana dhab tartankeennu waa ciyaar kubadda maaragtay mid la yidhahdo ciyaar saaxiibtinimo waa kii af carabida ku mahmaahaya wasiirku mubaarayaad wadda baa la yidhaahdaa mubaarayaad wadiya waa tartan saaxiibtinimo weeye doorashadu saasaanay dee horena ugu soo dhacday waxaynu iminkana xadhigga ka jaraynaa haddii alla ka dhigo daamkii weynaa